anigoo ah Haji Xasan Bulcali loo yaqaano Qaroofow dastuurkaani waa masiirka Soomaaliya 40 sanadood ayay dastuur la'aan ahayd dhib badanna soo martay burbur badanna soo martay dastuurkaani waxay ila muuqdaa anigu kii loogaga bixi lahaa burburka iyo baaba'a kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadaha jiraba kulli waa la wada baaba'san yahay Soomaali meel u roon ma jirto qaar xabsiyay ku ureen qaar badahay ku baaba'een qaar Yurub carruurtoodii iyaga isku waayay marka waxaan rajaynayaa dastuurkan kii isu soo celiya Soomaali weyn inuu noqdo mashriq iyo maqrib isaga keeno walaala ka dhigo xaqooda qof walba oo Soomaaliga ah xaquuqda uu leeyahay oo dhowro annagana aan saas ku hirgelino ayaan rajaynayaa insha Allah taala haddaan ka hadalno shirka ka dhacaya maanta mataqaanaa magaalada Muqdisho qaar ahaan kulliyadda tababarka ee booliska Soomaaliyeed isugu yimideen ergooyinka laga soo xulay gobollada Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho waa dastuur ummadda Soomaaliyeed waa dastuur loo baahan yahay waana u baahannahay dastuurkii adduunyadana qolo kasta dastuur bay leedahay dastuur maaragtay diinteeda iyo maaragtay dhaqankeeda ku salaysan marka kan maanta ilaahay mahad way hadii mataqaanaa meeshan maanta la isu yimid oo la rabo meeqaankii ummadda Soomaaliyeed in dastuur loo sameeyo dastuurkaas oo gaarsiin doona tababar waa ogeydeen 60kii markii aan ka baxnay gumaysigii talyaaniga in la sameeyay dastuur 60kii ahaa oo raggii ay sameeyeen hadda ay joogaan kanna wuxuu la mid yahay dastuurkaas oo kale marka dastuurkan markii hadda la sameeyo oo uu dhaqan galo marka maaragtay dastuurkan waa dastuur aan maaragtay soo dhaweyn doono insha Allah marka hore waxa farxad weyn ah in intaan oo muxuu ahaa Soomaali ah ergooyinkii qabaaladka Soomaalida matalayay ay halkan joogaan magaalada Muqdisho oo laga doodayo ansixintii dastuurkii Soomaaliya mustaqbalka u noqon lahaa anigoo ah Suldaan Xasan Xaaji Maxamed Xasan Gulwade waxaan jeclahay su'aashii aad weydiisayna ahayd seed u aragtaan habka geedi socodka shirka runtii aad iyo aad buu u wanaagsan yahay shirka socodkiisu maalintii afraad baanu maraynaa maalinba mawduuc gaar ah ayaa naloo soo gudbiyaa waana laga hadlaa maanta dastuurkii baa la akhriyayaa sidana lagu yidhi berrina qaybaha 10 qaybood baa laysu qaybinayaa kuwaasina waxay gaadhi doonaan inaannu soo doodno oo wixii wanaagsanna aannu sii dayno wixii aannu u aragna mugdi waxoogaana aannu gaar u soo qorro oonu soo gudbinno marka jadwalku guddiga wada ee muxuu ahaa guddiga hawlaha wada ee farsamadu si fiican bay u wadaan hawsha raallina waannu ka nahay haddaannu ergooyinkii nahay waanan jecellahay dastuurkan in uu hirgalo haddii Allah idmo si Soomaali ay uga baxdo dhibaatada iyo qaxarka ay muddada dheer ee 22 sano ay ku soo jirtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed boggeeda inuu burcad isu mariyo in ummadda Soomaaliyeed ay heshiiso nabadi u timaado maantana dee masiirkeedii waxaa gacanta ku haya rag iyo haweenba dad waxgaradahoo la soo xulay gabdhihii Soomaaliyeed ee garashada iyo aqoonta iyo xigmadda saaxiibka u ahaa iyo raggii odayaashii culimaadudiinkii waxgaradkii aqoonyahankii intaasoo isu timidno 825 maskaxdooda iyo caqligoodu ka gudbi uu maayo wax xumi wax fiican waxun meesha lama keenin waxa la keenay erayo u baahanuun in la saxo sixitaankiina waannu ku jiraa Soomaalina waxaan ka codsanaynaa waxaannu u soo gudbineen oo ogolaaneen isku raacno inay u qaadato sidaa aannu u soo gudbinay ay u qaadato maxaa dhacay bini'aadamku waa talakeen iyo tala raac haddaannu taladii keennay hala raaco taladanidii aannu u soo gudbinnay waxaanan jeclahay inuu guulaysan doono dastuurka iyo ansixintiisu ummadda Soomaaliyeedna mar unbay waxay u baahnayd ku dhawaaqday way daashay waxay ka soo daashay dil iyo dagaal iyo dhibaato iyo qax iyo barakac iyo muxuu ahaa qaxooti bannaana iyo muxuu ahaa waxa dadkan la yiraahdo qurba joog taasoo dhan dalkoodii oo nabada inay ku soo noqdaan bay u wada baahan yihiin marka waxaan rajaynaynaa
ummadda ilaahay nabad inuu u keeno boggeeda burcada la isu mariyo isfahamto mar unbaan dawlad in la yidhaahdo yay u baahan tahay ummaddu way daashay ilaahay dawlad caadilah oo diinta islaamkana nagu dhaqda kuna muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeedna masiirkeeda gudan karta ilaahay ha noo keeno hoggaan caafimaad qaba oo ummaddu u siman tahay cadaalad iyo sinaan iyo wadajir ilaahay hayna siiyo waanan guulaysan doonaa insha Allah idinkuna ansixiyaasha muxuu ahaa ergooyinka Soomaali weynay iimaansada waxay idin soo gudbiyaan iimaansadoo naga qaata waanad mahadsantihiin magacaygu waxa la yiraahdaa Sacdiye Aadan Ibrahim waxaan ka mid ah ergada ii sheegeen gobolka Awdal ka socota maxay deenay waanu ku faraxsanahay shirku sidoo u socdo oo maalinkii afraad waxaan leenahay si qeyr qabta Allah ku soo gabagabeeyo anigoo magacaygu yahay Cabdullaahi Suu Axmed Haliil oo ka imid gobolka Jubbada Hoose Dhobley to Nairobi aan diyaarad ka soo raacay Muqdisho aan ku imid waxaan u imid nabadoonka iyaga Suldaan Cali Sokor oo runtii suldaan qiimo leh oo aan ku ixtiraamnay inaan ka soo qayb galno shirka ergada 825 anagoo u matalayna by families u matalayna runtii dastuurka waanu aragnay waana akhrinay waxyaabo saas oo dhaliila oo hadda lagu sheego dastuurka ma uu qabo oo inta badan waxaad muddo dastuurka inuu Soomaali faa'iido weyn ugu jirto waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ama bulshooyinka Soomaaliyeed wixii ay idin soo qaadaan qofba meel buu ka yimid waan u soo maarnay أنا مقعي وأيان أنا حريت وهريت وحنا بسلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت ودي فوركي شركي كولستريشنكي مقدشة كدعاي وحن كيمد إرجدي بنت اللي أنا كمد هاي وفي عين شركات بو في عين هاي ما ركتي سفي عم بالله شقينها كولستريشكو في عين هاي وأنا كفرح حسنا هاي إن شاء الله وأنصحنا وحي قلدا يرى كجرنا وكسار دونا إن شاء الله تيدي برسنتج كقبلها إن شاء الله أيضا والله أنصحن دونا مقعيقو أحمد ياسين صالح كسعودة إرقادة بنتلان رهانتي ودو جدان مانتا ومالنتي أفراد دستور كأنصحنتيسا مالنتي شرعي أهيدون بحوغا حق تكنيكالكا والكمبيوتر حمادين قلي مانتا ما شاء الله وحنو قدا قلي دستور كأخرينتيسي وحنو آذي معنيه أبينينينا وآنو أرقني dastuurka wixii laga sheegi jiray oo been abuurka ahaa oo la lahaa way ku qoran yihiin horta wax ka jira ma jiraan run ahaantii ummadda Soomaaliyeed annagu 825 baanu nahay waxaanu matalaynaa Soomaaliya oo dhan maanta xukuumadda Soomaaliya oo baarlamaanka Soomaaliya maanta dawladda Soomaaliya ayaa lagu tilmaami karaa laanahu waxaanu ansixinaynaa dastuurka Soomaaliya oo annagoo ka baxayna gumaysi camal oo kale run ahaantii aad iyo aad ayaanu maartay uga baarandagaynaa waxaan diinta islaamka waafaqsanayna annagu ma soo ansixin doono taa ogaada shacabka Soomaaliyeed mid kale dad ka warxun sheega ah oo dastuurka been abuurka ka sameeynaya run ahaantii ma aha waa dad doonaya inaan kala damayn iyo nidaam wadanka ka jirin waxaan salaamayaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaan insha Allah idin rajaynaynaa inaynu soo ansixino wax guul ah maanta waxay ahayd waxa loo aqrinayay ergada dastuurka wax ku qoran oo dhameystiran intii ugu badnaan maanta waa la akhriyay qayb yar baa dhiman akhrintu marka ay dhamaatana waxa loo gudbi doonaa oo berri ah hadii alla idmo in laga doodo wixii maanta la akhriyay ergadu shakhs ayaga soo qarsan doona caaw wixii loo akhriyay markay sidii wixii loo akhriyay iyo waxay iyagu caaw ka akhriyaan iyo waxay ka fahmaan ay isku soo daraan berri hadii alla idmo si toos ah waxaan isleenahay shaqada jadwalka berri waxay ku bilaaban doontaa dooda markii akhrinta la dhameystiro si fiican bayna ku socotaa ilaa barnaamijkuna maanta wuxuu ahaa in la kormaro oo ergooyinka loo akhriyo dastuurka si fiican baana u dhacay u qabsoomay insha Allah waxaanuna rajaynaynaa inaanu berrito dooda dhex gali doono si wanaagsan oo aqbalana inuu dastuurku uu ku dhamaan doono insha Allah baan rajaynaynaa annaga talooyinka iyaga insha Allah wali isuma dawin qoraal baanu ku diyaarinaynaa
iyadoo qoran baanu u gudbin doonaa insha allahu guddiga farsamada iyo fududaynta insha allahu saasaanu jecelna.